aqoonyahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo sultadu iibsan karto dawladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoonyahan maaha hadduu aqoonyahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo tobanooda intay ku yimaadaan idhahdaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsaday hadduu aqoonyahanku noqon karo qof la bajin karo وما السلطة جرتا باتشين كرتو بقى جالين كرتو أما كلجر كبلشدو أيلاد هاي حن كلجر كالصن وين هو بقى جالية وين هذا احترامتا هو بقى جالية ما هي لكن كلجر كالليتا هو بقى جالين كرو أقويهن ما أما أقويهن كان ربنا وحبدل يي ماها سلو قال نفتح هنا هيشتا عالم كصديحات وحكم ده aqoonyahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado aan aqoontu wadin aqoonyahan badan wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyad lahayn maxay xagga shilinku jira uun jira aqoonyahan badan wuxuu noqday inagu dhaqankeena ka Soomaali ahaan ka umma Soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaarijiya binaadam walibana labada dhibood buu leeyahay dhib daakhiliya aynu leenahay oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay siyaasaddeenu waa qabiil mararka qaarkood waxaan isdhahdaa axzaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna soo ma kala guureenu دين من كان مدحضة كان أنت مثل قاعدك حسبك كليل الجيو رأيكنا وون حق لو كسور رجله وايو هدينا ايديولوجي هدينا وحين وحقوق قيمين نظم السنين قفر ما يصنعي ما هي نقف كان حيان وكما هضليو لكن وحويا هدينا شخصنا قف دبص عنه أين المبادئ دبص عنه يا أركتي قفك إلا الرعا وحن معها لكن قفكو وين وحن كل رعسنا مبادئ يا أركتي تهاي لكن هدينا غطينا نذكر غيرنا هينا كل دبص عضو دي أقويها أنا شيء أنا ما قاعد على شيء مركها هدوها ورنين literate man بان هيا ما learned people كان كم ده هيا ما scholar بان هيا ما academic بان هيا ما intellectual بان هيا الرياضة ترى بدلنا في إنجليزي كمان شاء الله يدون كل شيء هالشيء وحنا شيء من غير هبل أنا هيسكنه الرياضة ساسي خبيصنايا وحنا نوم الشيء تاني والسلطان وعاقل ومن غير هبل غير هبل واحد كوجو أم بكوجو خلاص isaga kama baqa sanay marka hore duubkiisu sitay laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoontu weynay wax soo kordhisa weyna cultural revolution samaysa weyna bulshada aan bedeli karna taxadiyad khaarijiya jira oo ah tajhiil al-umma umamka saad u gubayso si loo gumaysto weyna aqoon darro lagu hayaa umamka si loo gumaysto waa in la tajwiiciyaa hadday madaxa yara taagaan waa in la gaajaysiiyaa cunaqabatayn dhaqaalaha waddankan lagu soo rogay waxan baa lagu soo rogay umamka si loo gumaysto waa in la bajiyaa waa in la baqageliyaa haddaasaa yeeli weydaan briskaa laydinka jaraya waxbaa laydinka jaraya ubka laydinka iibin maayo waa laydin cunaqabataynayaa duwal ilmaariqa baad ku biiraysa dowladaha shaydaanka ah rag baa qaanuunka iyo xoogga iyo waxa uu dhistay oo ku talagalay inay hayaan say iyagu rabaan inay wax u sawiraan laakiin anigu waxaan rabaa inaan xor ahaado meel laga xoroobana caqliga ugu fiican marka koowaad caloosha inaad ka xorowdo inaad caqliga ka xorowdaaba ka roon markaad caqliga ka xorowdaabaad calooshana ka xoroobi kartaa waxaan u baahannahay markaa تحديات خارجية أما challenges كدبدة كيمانية إنك حروبنا challenges كدبدة كيمانية واجي هره دول بواح وما يسنشروا حروق وقب سنشرين إمك يدبون وصدق قرآن شده هذا وصعدان قرآن شده محي ويتمر يرتي لكن حقيقة صواب حدا مالك استوت شيء حنون بيفوت كصورة مساعدات سكجو فينين دي
bulshada tasaduceeda bulshadu hadday burburto quraanjo dhan baa ka soo dhex baxda bulshada Soomaaliyeed way burburtay culturally bay burburtay dawladnimay burburtay dhaqan baa burburay diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kasta ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen maalin walba seminar yar iyo capacity building baa laynoo wada soo capacity-geenu ma dhismo ilaa ka inoogu sarreeya baarlamaan baad maqlaysaa la leeyahay capacity building baa loo samaynaya kuwa academiga capacity building loo samaynaya waxna la inooma sheego waxaynu noqonnay inta laynaga dhex toosay ee dawla taxta dilli baa talisa dawladda hooska waxay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa wasaaradaheennoo dhammi NGO-ya hoosta kaga naban iyagu masruufa bulshadeennoo dhan maca tujaarteenna maca waxeennoo dhan balaayo kale hoosta kaga mudan oo dhaqaale ahaan ku hoggaamiya waxaynu noqonnay dad keenada loo hayo keenada soo ma taqaanin awrka dee xadhigga marka lagu xidho keenada la xidho ee loo faruur xidho waa la wadaa uun hadduu madaxa yaro gijiyana faruur xidh baa loogu daraa maca faruur xidhka aynugu xidhan idan ayuha alaxiba waxaad tiin da'yartii akademika ahayd ee wax baranaysa ee jaamacaadka joogtay waxaan iga rabaa waxa weeyaan inaad kayd aqooneed samaysaan aqoon kayda inaad samaysaan waxaan kaloo idinka rabaa inaad xis naqdiya yeelan xis naqdiya macnaheedu waa maxay waa inaad xorowdo inaan maanka laydinka degin oo laydinka gumaysan inaad xor noqotaan intaa markaa yeelataan waxaa awood u yeelanaysaan inaynu bulshadeenna bedello bulshada dadka ugu badan ee bedeli karaana waa aqoon-yahan hadduu aqoon-yahanku yahay mid qandiilka toojka midu sida ummadda hadduu noqdo aqoon-yahanku waa qof dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen aqoon-yahanku waa mid dadka u ilaalinaya kaljarkooda wixii san iyo dhaqan iyo diin ay leeyihiin ilaalinaya oo ka ilaalinaya in cid kale soo gasho aqoon-yahanku waa mid isku dayaya ummaddu waxa xun ee ay haysato mid duminaya hadday qabiiltay hadday mukhadaraad tahay hadday dhaqan xumo kala tahay hadday ammaano darro tahay waxa allaaliya waxa bulshada inay horumarto kor u ruqaansata u diidaya waa qofkii ka hufi lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa inu isagu markaa noqdaa qof nadiifa